بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى maanta oo maalin jumco ah taariikhdana ay tahay islaamka 11 bisha shahrullahi shacbaan sanada 1447 hijrada nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. tan kalena ay tahay 30 bisha January 2026 markaskeena daar العلوم التعليمي wuxuu qabanayaa xaflad lagu khatimahayo oo lagu maamuusayo tafsiirka quraanka kariimka ah oo muddo soo socday oo halkan howlkan hadda aan fadhino ka socday oo ilaahay fadligiisa soo gabagaboobay shalay casarkii soo gabagaboobay ayuu maanta khatimkiisii ayaan u fadhinaa iyo farixiisii. waxaa kaloo la socotaa إعلان نتائج المسابقة مسابقة أرضية دحية كسعتي مركز كوقبناي نتيجة دي أيضا إن هل كان لقى شاعية إن شاء الله تعالى تاو حيرة دان يرفع هيو إن أرضية مركز كدكتان وراك حفاظة قرآن إلهي سبحانه وتعالى صحفيين هل كان نوي معدن علمي شرعي إني برتان تفسيركي أحاديثتي يا علومتي كلا أخذ مينيسي إني برتان marka si quraanka kariimka uu fakanin cilmiga sharcigeena ay u bartaan ba quraanka kariimka xifdigiisa asagana aad loogu dadaalaa si loo xajiyo sababtoo ah hadii la xajin waayo lagu celin waayo de waa wax la xifdiyay asagana uu iska dhumi. marka dadaal fara badan ba marka ay markaska sameeyaa musaabaqa ayaa marka la qabtaa oo ardayda dhaxdooda ah ayaa bilaabatay. marka natiijadeedina insha Allah ta'ala halkan yaan ka ogaan doonaa oo waxa fadhiyaan culummadeedii iyo lajnatu tahkiim ayaa fadhiyaan insha Allah ta'ala ay ka noo faahfaahin doonaan natiijadina noo sheegi doonaan insha Allah ta'ala. marka waxaan ku bilaabanaynaa xafladeena aayaat min al-Qur'aan al-Kariim oo noo akhrin doono ardayga Abdullah Mukhtar Abdi la yiraahdo. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا ذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها إن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه من يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا. الله كو زياديو قرآنك كريم كان دو أخرصي إلهي هكو بركيو أرضك الله بركيو waxaan la halmaami karin bacda xamdillaahi subxaana wa tacaala inaan u mahad celinno culummada markaska daarilculuum oo dadaal fara badan wadaan oo u horeeyo alwaalid sheekheena sheekh cabdiraxmaan xafidahu allahu tacaala iyo culummadiisa kale ee la shaqeeyaan gaar ahaan sheekha tafsiirka akhrinayay sheekh axmed dhuwow khayr allah siiyo oo maanta tafsiirkii oo uu gabagabeeyey aan u fadhino xafladiisii insha allah waxaan rabnaa inaan ardaydii tafsiirka qur-aanka kariimka ay soo dhegaysanayeen ay kusoo taxnaa min suurati alfaatixa ilaa suurati annaas inaan hal iyo labo ama saddex insha allahu aan ka dhegaysanno aayaadka oo ay noo tarjumaan oo qur-aanka kariimka ka mid eh ardayga luqmaan maxamuud cabdallah oo آياتنا مقشين دونو القرآن الكريم كمل ترجمة ونو ترجمة باللغة الصومالية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إن شاء الله تعالى هنفسر دونا آيات القرآن الكريم كمل وانا كمل تفسيرك وشاق إلهي سبحانه وتعالى كأول سيه ونوسو آخرنا عم فسر دونا إن شاء الله تعالى سورة الأنبياء لكن أنت أنا فسرن سورة فسر كذا نقول قلين دور قضب إلى أفر قضب ينكهل دونا إن شاء الله تعالى قضب كوكوات وحواي سورة دنا يده سورة الأنبياء حقيقة سودكته إلى القرآن كوا إما إنه مكي هي إما إنه مدني وياهي مركز سورة الأنبياء ما مكي جيبا مس مدني قرآن كي مدني كوسو دعوة وان كهذا دونا قالوا كل هذا كهذا دونا وحاول الله سبحانه وتعالى يقول هذا الله سبحانه وتعالى أوجر هذا سبب نزول كأيضا سورة أيضا سبب كوسو دكتة قالوا كسدحات سبب اللهم عاوي سورة الأنبياء قالوا كأفراد إن شاء الله كوجو جين دون قدام يسين دون أنت سورة فسرن وحاول suuradan ayada ah markay soo degtay saxaabada qaarkood qaabkay u saameysay iyo waxa culimada ay ka qoreen may soo ururiyeen hal qiso insha Allah sheegi doona hadaan ku bilaabo suuradan ayada ah waa suura makiya waxayna soo degtay 13 sano nabiga sallallahu alayhi wasallam uu Makka ku noolaa Makka uu joogay ee wali uu soo hijroon waxayna soo degtay suuradan ayada ah قبيل الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أنتم مدينة أسوه هجرون وحير كهر يسود دكتة مالها سنة كلا بيتمنات مالها قرآن كمكي أنا ما كسود دجني وسديتا يلح سورات هل كميت كمدينة مدينة كسود دجي وياهي لواتن يسديت سورات مركز سورة النعيدة سورة الأنبياء وهي كميت هاي سديتا يلح سورات النبي صلى الله عليه وسلم أنتم مكجوجي سود دجي قلق قوات oo halka ay ku soo degtay suuradan ayada waa maki sabab nuzuulkeeda qodobka labaad sabab nuzuulkeeda waxay sheegaan culimadu gaaladii kufaarta Quraysh waxay yiraahdeen ninkan asaga ah Nabi sallallahu alayhi wasallam oo la jeedaan ee nabinimada isku sheegayo mar walbana qiyaamo iyo waxaan loo joogin ka sheekaynayo wax qiyaamo dhici rabana aan arkin maxay tahay مركز الله سبحانه وتعالى أسود جي سورة أيضا وكلها اقترب للناس حسابهم قيام إن الدعيتان كذا لا شك إسكداي ويسود دوات الدعيتان كذا أيضا مركز جواب قال أيضا لو جواب سورة كسود دكتي قالوا كسدحات صوت محيطها لهم مع سورة أيضا سورة الأنبياء حلين علوم صوت لهم مع وحول عدد فربضا وأنبياء الله سبحانه وتعالى كم ده يلا وشة وعدد أيضا لو وشة هل سورة بس يا كبضا أو سورة العرافة عدد فربضا إلى لحيتان يا شيغان
qeexitaan nabi yaa gudaheeda lagu sheegay dhan waa sababta lagu magacaabay suuratul anbiyaa qodobka ugu dambeeyo oo saxaabada nabi sallallahu alayhi wasallam say u saameysay hal qisa haddaan soo arooriyo oo ibnu kathiir alimaam الجليل عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي وكتاب كيسو وكشة تفسير كإيه وكو سورة أيد وفسرها وحسوا شيء قصة ما شاكو سوري وكسورنا ابن عساكر وليه وحكو شيء ترجمة عامر بن ربيعة الصحابي أصلا رضي الله عنه ترجمة اسمه كل شيء ابن عساكر يقصنا أيد وكان نعم قصة أيد مركا ابن عساكر وحكوري من طريق موسى بن عبيد الله الآمدي من طريق موسى بن عبيد الله عن الآمدي عن عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم عن أبيه عن عامر بن ربيعة قصة سنة أولى عيسى أنه نزل به رجل من العرب عامر بن ربيعة صحابي أصيه يا وحكسو دجنين عربت كم من الربادية يكسو دج مركز عامر بن ربيعة نينك أصها يسوفي عن أمر تقاضي نبي صلى الله عليه وسلم نو كلاه الله نينكي مركو نبي صلى الله عليه وسلم أتجي يعامر بديب أوصل على مركز وحود عامره نبي صلى الله عليه وسلم وحنك جوي طلب إنه يجويه وهذه قال لي هذا عربي ماشي عربي لي هذا وهذه يتوقع كياله إنه يجويه النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا من جويه بر مرة إن جويه أو هذه يعرف هذا كذا ما يعرف هذا إسكال هذا مركز عامر بن ربيعة وحوي هذا وحسود دكتي آيات أما صورة نجم مشغول سه الدنيا ذن يوحنا أيضا أشياء هيسو قابك أيضا يوصل ميسه وهي إيجارين وحي الدنيا ذي وحالة هذه مركز آيات سود دكتي أي رهان وينجم مشغول سه وقابك يوصل ميسه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقدوة ذي إدتك أن كده هنا أنت هذا أواب وحرعة صورة ده الصوماليين أنت هذا أقول قاله إله سبحانه وتعالى وحيري بسم الله إبوين مجلس أنكم بالله عليه الرحمن نحريس جود أهانين نحريسته عليه الرحيم نحريس جار أهانات ومؤمنين تخاصكوا ونحريسنا وحي الله سبحانه وتعالى اقترب للناس ذاتك وحا أسر دوادي حسابهم حساب توذي إلا حساب تنكوذي وهم أيونا في غفلة ورلآن قويسي أي معرضون حق كجود سدين أما وحي أما ساعد قيامي كجود سدين وإسكان ترين ما يأتيهم ومي ماذا من ذكر قرآن من ربهم ربي وحقي سكاء هذا محدث لعصبوني حق سودجين تعصب إلا استمعوه ويدقيستان وهم أيضا يلعبون اسكع يارهان لاهية حالي مشغول صنطهي أي دقيستان قلوبهم قلبيوض وأصروا وحي سريستان النجوى فقئي الشركة الذين كوي آيا فقئي الشركة سريست ظلموا قالوا قائلين حالي إليهين أما قائلين أيقوله ما هذا كان معها ونبي صلى الله عليه وسلم يقول جودان إلا بشر وأن بن آدم مثلكم إذنك أوكاله أفتأتون واحد أتيسان السحر سحر مياد أتيسان وأنتم إذنك تبصرون أركو واحد أتيسين إنه سحر قال النبي صلى الله عليه وسلم حيري ربي جيدي أيا يعلم القول إري دمانتي في السماء حق سرع خصوصا إريقا أساقه والأرض للكوا وهو الله سبحانه وتعالى السميع وحو البو ومغلى الله سبحانه وتعالى العليم وحو البنو أجي هيوي بل قالوا وحي رهذين قال ذي عن القرآن قرآنك وحي كي رهذين أضغاث أحلام ريوين لسكدر دروي بل افتراه محمد بابنا ورته النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل هو شاعر وهو وحن وماشي الأردايو وشعر بيرهذين فليأتنا هنولي ماذو بآية معجزة كما أرسل سيد معجزة لولا صدره الأولون رسول شهر سيد معجزة لولا صدره ما آمنت مين رمين قبلهم قبل قريش هرطوذ من قرية أي من أهل قرية ضد صاحبه أهلكناها أهلكني أفهم أي مية يؤمنون رمينين وما أرسلنا مين درن صوبنا قبلك أذيك هرطوذ إلا رجالا ركبان درن نوحي أن وحيونينو إليهم أيها حقوذ فاسألوا ويديا أهل الذكر أقوان تدتك وصاحبك إن كنتم هداتهن لا تعلمون كو إنك وحبا قرنين وما جعلناهم رسوش كمان يلين جسدا جر لا يأكلون الطعام عنتدان عنين بل كانوا يأكلون عنتي عنين وما كانوا ما ينهان خالدين
kuwa markaa iyada waaro ee waxay ahayn kuwo dhinto way ambiyada ku duway dhinteen tuminta kadib sadaqnaahum ambiyadii waxaan u rumaynay alwacda yaboohi iyo ballankii aan ka qaadnay fa anjaynaahum waan badbaadinay ambiyada ayaga laftooda waman axadna waan badbaadinay ama axadkiina waan badbaadinay nashaa annaga aan doono wa ahlaknaa waxaan halaagnay almusrifiina kuwii xad gudbe ee ambiyadii beeniyey laqad xaqiiqe anzalnaa inaan soo dejinay ilaykum idinka xaggiinne yaa ummata muxamedin kitaaban kitaab fiihi dhexdiisa ay ahaata kitaabka asaga dikrukum sharaftiinne afalaa tacqiluuna miyayna wax garanayn ما شاء الله بارك الله فيك الله كو زياديو علمنا الله كو أنفعه علماء كبرتين إلهي سبحانه وتعالى عمري وضعنا هذا يريو علمي وضعنا بركة كي يوم أنفعنا الله كاريو لما أنت إنسان الله نقبض أرضي لبعض أيام نوجو حجة أو لهجة ماي أصلا نوجو فسير دونه آيات من القرآن الكريم أما عيسى اللي يرهدو أحمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبي الله وعلى آله وصحبه أجمعين وما بعد إلهي ما دسكولا أولا وآخرا مما لم بأنفرنا خاتم أو نكخاتم أنا تفسيركي شيخني ودي ما بفضاء وليركو انت أنا كد دارا وأنا كو أخريا آيات ومن القرآن الكريم آياتها تبلغنا وسورة الأنبياء سورة الأنبياء ترتيب كقرآن كما دليرها ما وها سورة دي لاتين كوات آيات شيئا ما وها وقلت لهم آيات إلى مبارك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله مغاشياك بالله به عليه الرحمن نحريس تجود نحريس داي مسلم قلب نحريس داي عليه الرحيم نحريس خاصة المؤمنين تنحريس داي أو جنة جاي اقترب ما يبدوادي للناس دتك ما يبان دوادي حسابهم حسابتيو وهم يون في غفلة هالمام قدوشة يكسوين يا معرضون كجيس دايا عن التهوبي انت لن ديار قيامة يكو جيس دايا ما ياتيهم مع انكويا من ذكر قرآن مع انكويا قرآن كاسوم محدث حتى لهدجي شيئا فشيئا لهدجي او من ربهم حقر بشي لهدجي او باطلا هاين إلا استمعوه قرآن كي يدقين سدايا وهم يو يلعبون ديلايان او كجس ديسايا قرآن كي لا هي تنتنا مشغول سنتا قلوبتيو او موجنتا قلوبهم قلوبتيو قرآن كي موجنتا وأسروا تنا ميبه هو سندك داينا النجوى هذالك إيو شركي يو قلاين هو سندك داينا الذي كويا هو سندك داينا هذال شو ظلموا قالوا بن إيو أهريان هل هذا ما هذا محمدكم ما إلا بشر أو مثلكم يسمى كلاتين إيه أفتأتون عن سيداسنا ورعاسنا السحر سحر رعاسنا والحال أنتم يسمى تبصرون عرقاسنا ها انت سحري قال قل لهم نبي وميبا راسي ربي يعلم أقل بدن القول هذا اليوم أقل بدن هذا الكاسو كائن هذا في السماء والأرض عركي دول كدتيو يولي هذا لك هذا لو إله أق يوغير وهو إلهنا السميع الله والول بديقو العليم هتن علم له بل قالوا ميبا رينا قال دي أضغاث أحلام هان لنكون لررورو قرام إيه ما يوهان ريو هلما لسكدر داريو بل اسكورا فنتوسي اللي ايه هتان افتراه محمد بن ابو رضيعين بل هو شاعر هتان هذا الشو اسبران براي مبلين هتان الشاعر ايه فلياتني لكويو بآية معجزني لكويو معجزة سو دالة تساهيت انتوس النبي ايه كما سيد ارسل لنا دير الاولون رسوش ريتي سيلان لا دير معجزة لنسي نيلكويوس ما امرت مرهمين قبلهم نبي محمد وكفار قريش مرهمين من ما أمنت مرهمين قبلهم كفار مكة هرتيه من قرية دتكسونا دتكاسو هلكنا ونهلاقني مرهمين علامات كي وليالكي والنبي صلى الله عليه وسلم مرهمين أفهم يو قالوا هتيه كفار مكة يؤمنون رميانا بنتيو وليو رميان ولا علامات كستولة تسمى رميان جزاك الله خيرا الله كبارك يو أرضي سدحاد إن شاء الله ugu dambeeyaan kusoo gaabsanaynaa Yaxya Mursal oo asagana لغة قرضة كفسيرة اللغة القرية كفسيرة إن شاء الله الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وعظمته ثم الصلاة والسلام على سيد الورى وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى وأنا في لغة تفسيري
تفسير القرآن الكريم كديون وقدوبة إن شاء الله تعالى. وأنا في أجن تفسيري أدير كمتك إن شاء الله سورة الأنبياء سورة مخانسي سورة الأنبياء لنين جزء قدي تربة نمر بالله وتعالى آيات دين سيلين آيات إباف قدين لما وأن سير دبة لين أنبيوت ردبة أنبيوت القرآن كيسا قد من جر إلا أجاني جر سورة مخانسة كيسم جر أنبيوت القرآن كيسا قد من اللين أنبيوت قدام شانين قدام شانان إن شاء الله سورة القرآن كيس مخانسة كيجر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله مخربية بالله اللي هي الرحمن نحريس عام نحريست اللي هي الرحيم نحريس خاصة نحريفت يوم القيامة مخاسات بالله إن شاء الله جربين نفيد. اقترب وانديات ربي سبحانه وتعالى للناس نموان تقدياته حسابهم حساب تنكيسين حساب تمني تقدياتين ورح حساب تمون فلانين سلين والحال هم ورلين في غفلة إرانفت كيجر ورسم في غفلة إرانفت كيجر سن حساب تمون نجراتين ربي سبحانه وتعالى معرضون حال سيرة دقدقة قال خبتم الله ورسولين ما يأتيهم يتندفن الخلق تقدندفن ربي سبحانه وتعالى من ذكر قرآن كي تقدندف ذكر أرمة وانبانا قرآن كبانا من ذكر قرآن كي تقدندفن ربين من ربهم قال ربي سي تقدندف محدث قرآن كي سنة ملك بو إنسي ساريا إلا وجه قرآن كي سنة بو إنسي ساريا تقدف استمعوا وانت خفته قرآن كي وهم والحال هم والريا يلعبون استطبتوا قرآن كي سنة خفت ملك كوجه جرماني لان يتوان مكسن تطبتون سنة خفت ملك آيات سوان حكم كي نسيا كان يتو خفت دراجي سنة لا هي توام مشغول قلوبهم قلبي سي مشغول ربي سبحانه وتعالى وأسروا وانسي ريفت وانسين دخفت وانسين شورت النجوى شورتين الذين ورسون كشور عمل ظلموا ظلمي ونسين شورتين وانسينت هل هذا ما هذا كوان بيمت إلا بشر نمت مثلكم مكي يسني أفتأتون السحر سحر كي تقدفتني رفلتين إذن سن أرجو جرتن وأنتم والحال أنتم مثلين تبصرون أرجو جرتن إذا مرجو جرت كانت تقدفتني سحر كي رفلتين قال نبي سوانين إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر لنين قال وان نبي ربك يعلم بك القول دب سرا وجهرا قنقل فلن دبتني تلام دبة لربك بك في السماء سميد كيست والأرض لفكيسة دبة لربك إن بك وهو ربك السميع رب دغوين السميع رب دغ كوان سنت نشوف دغوين العليم كبيك ملوان سرجت نشوف بكوين بل قالوا وريوان سنت هو قرانك أضغاث أحلام أو جليدبة والتد الدرانيات أضغاث السلكين سلام رغفلة ولا رمجة والتد الدران تاكسون سنمي أضغاث أحلام نتقرانك والتد الدرانيات بل افتراه جرف بسنة تمل بل افتراه إسقد برتي تمل وان منك من أخفته بل هو إني شاعر قبيالك فليأتنا هنوتين قدفت بآية معجزة نقدف كرامة كما أكرسل الأولون أكو ردران إرجن إني اسم معجزة قدفت إني لنا كسم معجزة قدفتيت ما آمنت دقيس قبلهم مركن دران من قرية ورد ولد دقيس مكان ورد دران دقيسنات أهلكناها دقيس ردبنين ربي سبحانه وتعالى وان أهلكناها إن أهلكنين أفهم وركنت تم يؤمنون دقيس كورد دران دقيسنا وركنت تم دقيس ربي سبحانه وتعالى جزاك الله خيرا الله كبركيو taas waxay ka turjumaysaa oo ka dhigan tahay oo ayna tusaysaa markaska inay dad fara badan oo lahjaad kala duwan ku hadlaayo inay cilmiga sharciga ka bartaan si hadhow markuu qof walba meeshan uga baxo meeshii uu dadkiisa uu ka imaaday uu lahjadiisa ugu gaarsiiyo dacwada iyo cilmiga ugu gaarsiiyo taasna waa ilaahay fadligiisa iyo raxmadiisa subxaanahu wa ta'ala إن شاء الله أرضي أنت أصلا قابسنا وقتها جمعة سودو إن شاء الله مركا وحن كلمة سينينا شيخي قرآن كريم كيف السيرة شيخ أحمد دو فليتفضل مشكورا والشيخ تفسير كإن بدن ميلا بدن كوضو وآد يادتكو قاسيو خير الله سيو عرب كسنة داوالها قريو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركا كوات وحنوم هاد علينا يا رب سبحانه وتعالى عليه خالق أين أبورة نعموين كفرها بدن إنو قال نعمة الإسلام والقرآن أيوه الريان الله سبحانه وتعالى أي أولا وآخرا مهصل إنما كنسية تفسير القرآن الكريم مركا كوادين وإنو باللوضة
inoona gebagaboobo xaqiiqatan waa nicmo aad iyo aad u weyn oo shukrinteeda u baahan waxaan leenahay alxamdu lilaahi aladii binicmatihi tatimu asaalixaat xaqiiqatan farxaddayda lama soo koobi karo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inaan u mahadnaqno ayaa in waajib inugu ah waxaan kaloon u mahad celinayaa markaska daarulculuum ee xaqiiqatan la odhan kara ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu barakeeye midhihiisana ay muuqdaan sheekheenna alwaalid jasaahu llaahu khayran uu maamulo iyo tiimkan la shaqeeyo xaqiiqatan muddadaasaytow aadka u dheer tafsiirka qur-aanka kariimka uu soo socde juhdi iyo dadaal fara badan oo ay inoo sameeyeen yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inugu makansiiye tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa inuu marka koowaad inoo bilowdo inuuna gebagaboobo waxaan kaloon ayadana halkan uga mahad celinayaa ardadii muddadaa dheer soo sabrahayeen juhdiga iyo dadaalka badan bixinahayeen kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala tafsiirkiisa inay xambaaraan aadka u soo dhabar adkaadeen ayagana waxaan leenahay jasaakum allaahu khayran waxaad barateen ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmi naafic ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinkaga dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwii ummadda sii gaarsiiyano alle subxaanahu wa tacaala ha idinka dhigo xaqiiqatan aad baan maanta u faraxsanahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan marka koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba u mahad celinahayaa alxamdu lilaahi aladii binicmatihi tatimu asaalixaat hadal badan inaan sii dhaho ma rabi ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ina barakeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa kuwii muxuu ahaa ay ku barakoobaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inaga dhigo hada wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasali allaahuma calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الله نو بركيو كلمة داس قاوانا قلنا يري الدعاء داسن الله نو أقبله وحن إن شاء الله كلمة سينين هذا أنا شيخنا شيخ محمد قاسم أو دعاء مقالة كمدة هي دقيقة مركز كا فليتفضل شيخنا جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله جزاكم الله خيرا آدي بإذن سلام هيا بارك الله فيكم مناسبة ما أنت لسكوي ما داي لغو وينين هيو كلامك إلهي سبحانه وتعالى أو التفسيري ما قبدي وسوق قبوبي مركا ولا ليال جزاكم الله خير إلهي إذن كو أنفعا وحانا آدي مارتا أود عينينا مفسرك الشيخ أحمد أسألنا خير الله سيو أنت أول من أذكى ومرتاي استمرارك دوامك وإيمانها هي تفسيرك وقرآنك وتفسيره هي إلى أجرها كسي سبحانه وتعالى إذن كان إلهي أذن كو أنفعا كو وثيقة إلهي أذن كديو مدك لا ساد أكسنتين ولا لي القرآن كأد باللوبرته حق المعنى اللفظ أهانك حفظك قرآنك ماشي أركو دكسي وكسو جيدا حافظ عاد مرتبي أدنك ما لا تكتبه دكسي قرآن وكياله لكن وحا مارتاي مهم إن لبرتو قرآنك أد حفظنيسي وتكد ذاليسي وإنت سو جهدي وقت أكو بحنيسي معنيس إنا فهمته ووح مارتاي آدي غالي وأنا أرين مهمة سيدرونت أرنتاس آد بلا وقابيا تفسيرك قرآنك يمعناه إن لبرته آد بلا وقابيا لكن لنعك لو آد لو قد ذالا إن قرآنك الحفظي صمها مركز جزاكم الله خيرا حفظك وحال روا إنه قرب صعودا فهم المعنى إن قرآنك سيف عن أفهمتان قرآنك آد حفظ السولي مركز معني سيف فهمتان آد بأوسي جعلان مركز روا اسكحف السند لكن هذا حفظ القرآن كلمة أخريني معني سنة قرني وحنا قنيسة كمثل الحمار يحمل أسفارا وقرني قرآن كواتقانا لكن معني اسم قرنيست
ama maba si fiican uma fahansanidba marka haddaa qur-aanka aad garanaysay lafdigiisa aad xifsaneed xarfan aad u garanaysay macnihiisa maalintaad barato aad baad u jeclaanay aad iyo aad baad u jeclaanay marka maalin baa meel aan kelimad ka jeedinaynay baa nin su-aalna weydiiyey waxaan aad oga hadalnay xijaabkan aad oga hadlay kelimad xijaabni baa su-aal weydiiyey wuxuu dhahay sheekh ma annagaa qaldaneen mise ayadda qur-aanka maanta ay soo degtay markaas hore maxaa dhacay sheekh wuxuu yidhi culumaan qabi jirnay oo gabdhaha noo nikaaxaan oo maxaa dhihi jiray dadka qur-aanka u akhriyaan oo sheekh hebel la dhaho dadka laga dambeeya xagga diinta gabdhahoodana way iska qaawnaayeen been xijaab may qabinba marka waxay tiri hadda waxay su-aal baan isweydiiyey oo aayadda qur-aanka hadda la akhrinayo ma maantay soo degtay oo macnaha ma qur-aanka wax laga bedelo lagu soo siyaadiyaa mise see wax u jiraayoo mase culimmadii horaa wax garanaynin ama qur-aanka waxay shaki badan ba ay galo su-aalo fara badan baan isweydiiyey marka hadda wuxuu yidhi sheekhay cidda sheekha u ahaa gabadhiisa yaa iska qaawneyd oo xaaskiisa iska qaawneyd dad kale wax u sheegaa oo iska wadaaya ummaddii uu la noolaa mujtamacii asaga fiirsanaysa wax u sheega iska daaya qoyskiisii baa maaragtay yaa diinta ka qaawna marka arrintaasaa su-aalo badan ugu keenan buu yidhi sheekha isaga ninkii su-aashii weydiinayay laakiin hadda maxaa ku jawaabi lahayd ninka nin culumo ah oo sheekh hebel la dhaho oo 50 sano iyo 40 sano gabdhaha soo nikaaxay oo gabdhihii uu nikaaxay wiilashii ay dhaleen oo haddana gabdho u nikaaxay mar labaad oo haddana qur-aankana maalinkaas akhrinhayo gabdhihiisana ka qaawan yihiin oo ka xijaab la-yihiin oonu fahmin se wax u jira ma asagaa fahansaneen ma tafsiirka qur-aanka baranin mise sheekh unbaa la iska dhaho madaxu iska duubtay arrintaa halisteeday leedahay haddaan maaragtay meeshan ka baxdo macadka daarulculuum aad ka baxdo oo 5 sano 4 sano dhex fadhiday oo ta'siiskaa ka soo baxday lagu dhahay ta'hiil baa ka soo baxday takhasus baa ka baxday intii oo dhan waa dhamaysay sheekh baad noqotay madaxa duubatay waxaad tagtay meel maaragtay dadka ay kaaga baahan yihiin diin adigana diintii dadka u sheegtay iska dhaaf adig laftaadiba diin la-aan kaa muuqato soo arrin halis ma arrintaas marka jazaakum allahu khayran qur-aanka macnihiisa oo la barto waa muhiimadda koowaad waay oo lagaa rabo soo qur-aanka in la akhriyo keli ma aha waa in lagu dhaqmo taasi intaasi waxaa ii daba taallaa inaad qur-aankii aad baratay aad adigana dadka sii gaarsiiso oo dadka intaad fahanto adigana ku dhaqanto dadkana ugu yeerto waxaa waaye diin nin wato oo dad baan ugu yeeri diin leh oo daaci ah oo markuu meel fariistana hal aayad qur-aan aan soo daliishanayn sheeko unbuu dadka ugu sheekeen iyo ma un hadal iyo qiso saasaa la dhahay beri kan baa la dhahay taas iyada waxaa waye dadna kuma hanuunayaan oo meelna kuma gaarahayaan isagana dadku sii dhuminayaan markaad meel fariisato waxa koowaad aad soo daliishan aad akhrinayso waa inuu noqdo qur-aanka waxaa soo raacaa sunnada nebiga sala allahu alayhi wasalam xadiidkii inaad raaciso oo maaragtay qur-aanka fasirayso oo qur-aanka caddaynayso imaa mubayina wa imaa maaragtay mu'akida mufasira marag intaas inaad haddaad la imaanin waxaa dadka diinta ugu yeeraysa waxay noqonaysaa maaragtay ra'yi dad iyo wuxuu noqonayaa qisas ima dadka ugu yeerta diin ma noqonayso midda kale qur-aanka waa mucjizo aad buuna u culus yahay hal aayad yaa markaad macnaheeda intaad fahanta aad qof u sheegto way kala gedisan tahay iyo hadal dad oo maaragtay dadka u sheegto kalaamka ilaahay subxana wa taala hal aayad qof haddaa u sheegto way kala gedisan tahay nin ducaadda muslimiinta ka mid yaa maalin dhegeysanayay muxaadaro ujeedinaya wuxuu yidhi waxaan tagay waddanka norway baan tagay marka wuxuu yidhi waxaan wuxuu u tagay muxaadaro iyo meel oo mu'tamar islaami iyo u tagay kadib wuxuu yidhi markaan ka soo baxnay meesha loojka aan deganayn iyo meesha mu'tamar ka socday maalin kasta waxaan sii marnaa dhexda cunug yar oo dhallinyar ah oo mikrofon haastoo qaylin yaan wuxuu yidhi yaan marnaa buug yar buu saa u haastaa bible kitaab gaalaadka yuu haastaa markaas wuxuu yidhi qayliya islaan duq ah iyo nin oday ah yaa ag tagtaagan dadka marka wuxuu yidhi maarada meesha marayaan waa la firfiiriyaa wax dhegaysan male waa la iska agmarmara un iyagoo la iska qayliyaan cunuga unbaa xididaha maaragtay cunaha soo baxeen unbuu wuxuu yidhi asaga isqardadixinoo qaylinay kadibna haddana way iskaga tagaan maalin dambaa wuxuu yidhi dhallinyartii weydii ila socdeen oo afkana garanayeen waxaan loo dhihi cunugan maalin kasta waan ku barnay muxuu u qaylinayaa waxay dhaheen kitaabkaasuu fasirihayaayo wuu la qaylinayaa buugga gaalada baybolkaasuu fasirihayaa waxaasuu la qaylinayaa
oo labadan ag taaganna labadan ag taagan waxay cunugan shaqaalo iyo iyaga keensadeen oo u qaylin iyagoo ag taagan yihiin waa ducaad waa daaciyaal marka waxaan ku yidhi ma la hadalnaa sheekhda afkooda ma garanayne magacanaa iskala hadlay idinka waxaan u turjumaan iga turjumaana cunugii baan la hadlay maxaad u qaylinaysaa oo saa maalinkaas ayaad la hadlaysaa maxaa wax fahansiinaysaa qasadkaada muxuu markaasuu dhaykii gacanta ku tahay wuxuu dhaykii duqeydan la hadal waan la hadloo dhe waxaan dhoo dheh waxaan aad akhrinaysaan ma kalaamu rabbiba mise maxaa waay waxa akhrinaysaan muxuu markaasay tiro dhe waa word of god waa kelimatu rabbi waxaan akhrinaynay tiro dhe islaanti intay ila hadashay duqii baa hadlay islaantaa soo booday markaasaan ku iru dheh kalaamu rabbi anaa wataay idinka ma haysiin markaasay tiro dhe maxaa ku garatay waxaan dhoo dheh laba kelimad baan sheegi يعني لaba jumla yani sheegi labadaa jumla ii kala sheeg baan dhow dhahday markaasaan waxaan dhow dhahay kharaja axmedu min almadrasati kharaja axmedu min albeyti ila almadrasa xaamilan xaqiibatahu wax kelimad oo hadal oo munadam oo saas kataan saa u sheego dhe wiil may dhaqaaqeen kadib markaasaan wuxuu yidhi akhriyo dhe aayado qur-aan ah laba aayad baan akhriyo dhe egaasay islaanta tiraahdo dhe kusoo celi kusoo celi waan ku celiyo haddana mar labaad egaasay haddana kusoo celi waan ku celiyo mar saddexaad egaasay tiraahdo dhehe waata kelimatu rabbi waa kan hadalka ilaahay waa kan egaasaan dhul maxaa ku garatay waxay tiri qalbigaygu la hadlay hadalka hore waan ku celiyo haddana kii axmed baan dhexda ka geliyo dhehe kharaja axmedu min albeyti ila almadrasati xaamilan xaqiibatahu waxay tiri maya kaa iga daaftirta kaas maaha hadalka maxaa waay hadalka ilaahay maaha laakiin kii hore iigu soo celi aayadda qur-aanka waan wuxuu yidhi haddana ugu celiyey marka sheekh wuxuu yidhi ninka hata cajamiga ee aan garanaynin qur-aanka macnihiisa aan garanaynin qur-aanka wuu la hadlay qalbigiisuu la hadlay marka qasadkan kale waxa waaye markaa dadka waanini ama wacdini ama diin aad u sheegi aayado qur-aan waa aayad qur-aan waa inaad dadka u sheegta diinta qur-aan inaad soo deliishata waay qur-aanka aad deliishanaysa asagaa dadka la hadlay qalbiga dadka asagaa la hadlay marka adiga waxa way aayadda akhri oo fasir iyadaa maarata shaqadeeda qabsanay oo qalbiga la hadlaysaa yani qalbiga ilaahay baa iskala aayaddana waxa way hadalka qur-aanka waa kalaamu rabbi asagaa is doonani laakiin qisas iyo hadal dad dhammaan doon dadka hortaagnaato wax aad ku saameynaysa waxaad ka bedelaysa ma laha dadkana waxa lagu bedelo oo diinta maxaa tahay lagu saameeyo waxa waa kalaamu rabbi weeyaan marka jazaakum allahu khayran waa idinku dheereeya iskara lihaada waxaana laga doonayaa qur-aanka niila fasire oo aad barateen macnihiisa horeyna aad usoo xifdiseen walaalayaalow hala ilaaliyo jazaakum allahu khayr taas iyada aan ku dadaalno iyo naga fakanin hadda waxaa waaye macnaa lafdan waa macna waa haysa lafdan horeyba u xifdiseen walxamdu lilah maantana waxaa noogu darsantay bixamdi illahi wa fadlihi inaan haddana aad macnihii aad barateen marka hadda waxaan ilga rabaa alcamalu bihi inaad ku camal fashaan iyo wadacwatu ilayhi inaan haddana dadka aad gaarsiisaan hada wasalaam وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاك الله خيرا شيخنا شيخ محمد قاسم الله بركاته boorintaas uu na booriyey uu na waaniyeyna ilaahay hanoo anfaco saddex shay buu noo dardaarmay qur-aankii lafdigiisii iyo macnihiisiiba inaan barano ku dadaalno kadib aan ku camal falno ku dhaqanno haddana dadka aan gaarsiino ilaahay nagu anfaco subxaana wa tacaala insha allah waxaa noogu dambaysaa tii xafladdii macnaha xafladdii oo tafsiirka khatinka iclaantii waxaa noo dhiman iclaanaadkii natiijadii la iclaaminayay musaabaqada ee tartanka qur-aanka lafdigiisa waxaa noogu dambaysaa tan insha allahu sheekheena maamulaha markaska sheekh cabdiraxmaan xafidahu allahu tacaala isagana kelimadiisa jazaaka allahu khayr falyatafadal alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ولا ليال رنتي ومنة من الله عطاء من الله سبحانه هدية من الله سبحانه رزق ساقه الله إلينا تفسير القرآن كها إن الله سبحانه وتعالى نو ختمي مسجد كان أما مولعنا ومركز كان دار العلوم التعليمي في مدينة غارسة وفضل من الله لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
mar walbana nicamta alle waxay u baahan tahay in la sheego oo alle lagu shukriyo suu noogu ziyaadiyo noona baaqi yeelo nicmadiisa noogu baaqi yeelo subxaanahu wa tacaala waxaan ku shukrinaynaa walaalkeen sheekh axmed dhubow xafidahu llah waracaah wajacala aljanna mahwaah runtii u dhabar adkaaday akhrinta tafsiirkan qur-aanka kariimka isagoon ognahay inuu meelo badan uu ka wado waxbarashada iyo dacwadaba madarase macallin ka yahay tafsiirka qur-aankana meel kale uu ka wado taqriiban 2 tafsiir buu isla waday sheekha jazaahu allahu khayran waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu manaystay in tafsiirka caamka ah ee masaajidka uu ka waday ee mujtamaca iyo cawaamul muslimiin iyo ummadda kala duwan iskugu imaanayseen inuu idinka si khaasa dadkiinan dalabatul cilmiga ee nukhbada ah oo si gaara inagu akhriyo marka waa si gaara ayaad oga duwantii sababtoo ah dadka kale waa nin walba uu adiga iswad wahay waxaad ka faa'iidaysatay ka faa'iidayso laakiin idinka waxaad ahaydeen koox soo baxday u soo baxday tafsiirka inay dhegaystaan xumbaaraan qaadaan lagula xisaabtamo marka darsiga sheekhu akhrinayo wuxuu ka bilaabi jiray su-aalo wuxuu ku dhex wadi jiray su-aalo xaaladdaas way ka duwan tahay marka uu masjidka ku akhrinayo maxaa yeelay wuxuu ogyahay dadkan inay si gaara yihiin dad ugu soo xirtay inay kitaabkii qaadaan oo ay ummadda gaarsiiyaan marka ballaqa risaala jazaahu allahu khayran waana soo gaarsiiyey si wanaagsan buu inagu akhriyey ajir iyo thawaab miisaanka xasanaadka allah u geliya subxaanahu wa tacaala idinkana allah inagu anfaco inaad cilmigii aad qaadeen sii qabataan oo sii xifdisaan oo sii gaarsiisaan oo ku dhaqantaan dee waa arrin wanaagsan wey tafsiirka waxaa weeyaan qur-aanka kariimka ah waa wasiila lifahmi muraadillaahi caza wajal wa tadabburi macaaniihi wa macrifatu axkaamihi wa huwa ashrafu alculuum liannahu kalaam ullah qur-aanka kariimka waa waddadii lagu gaarayey muraadka ilaahay uu qur-aankan ka leeyahay in la fahmo qur-aanoo madmadoobe allah ku yaqaana bay dhihi jireen caamadii hore caamada hore saas dhihi jireen qur-aanoo madmadoobe allah ku yaqaana sidaa ma nihin innaga qur-aanoo madmadoobe muraadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaale ahaa ahlu cilmiga ayaa xifdiyey fii suduuri aladiina uutuu lcilma fahamkiisa iyo xifdigiisaba iyo ku sugan yahay marka muraadka ilahay in la fahmo macaanida qur-aanka in la tadabburo tadabburka waa in la dhuuxdhuxaansado oo la fiirfiiriyo oo maskaxda iyo qalbiga intuba ay la socdaan aayadda aad akhrinayso inay la socdaan qof aan tafsiir aqoonina tadabbur kama suuroobayaba inuu lafdigiisa iskaga macaansado dhagaysto ajir buu ka helayaa lacallakum turxamuuna buu soo geliba qofka qur-aanka iska dhagaysta naxariis buu heli laakiin macaanidiisa waxba kama yaqaano macaanidiisa waxba kama yaqaano wuxuu la mid yahay kalcaysi fi lbaydaa yaqtuluha dama walmaau fowqa duhuuriha maxmuulu neef geela oo meel bahgooyaa iska socota oo biyo dhabarka u saaran yahay oonu dhimanaysa biyihina dhabarka u saaran yahay saasoo kale weeyaan qofka qur-aanka aan macnihiisa garanaynin marka qur-aankan waa ashrafu alculuum tafsiirka qur-aanka waa ashrafu alculuum wey limaada lianna waxay dhahaan culummadu sharafu lcilmi bisharafi almacluum cilmigu sharaftiisa waa macluumka la baranayo sharaftiisa kalaamullaahi wey kalaam kale oo ka sharaf badan ma garanaysaan waa la maya wey waa cilmiga keliya ee jamiica alculuum wada kulmiyey waay jamiica alculuum cilmu alcaqiida alaxkaam alqisas waalamhaal culuum alcarabiya iyo saameynta ay ku leedahay fahmu alaayaat alqur'aan alkariim cilmu alqiraa'aat iyo saameynta ay ku leedahay fahamka aayadda iyo muraad illaahi min hadi alaaya culumtoo idilba culumtoo dhan halkaasi kusoo aruuraysaa walidaalika qofka mufasirka ah waa qof laga rabo inuu kulmiyo jamiica alculuum jamiic alculuum uu kulmiyo marka khayr allah siiye sheekh axmed tafsiirkiisa waan dhegaystay soo akhrinayo in badan runtii waxaan leeyahay waa nin dhallinyaro ah
oo dadaalay oo xumbaaray oo haddana tadriibkii iyo gaadhsiintii iyo duruqdii gaadhsiinta ilaahay u furay subxaanahu wa tacaala jaamaca alislaamiya bilmadiina mamara wuu ka soo baxay culummadiisiina waa ka faa'idaystay kuwii carabtaha iyo kuwii cajamkaha ee tafsiirka ka hadlay intaba oo dareemaysaa markuu fasiraayo rag culummo waaweyn oo culummadeenni ka mid ah inuu maaragtay ku ta'afuray oo usluubkii xakiimka ahaa ee cilmiga qur-aanka iyo tafsiirka ay u soo gudbin jireen inuu maaragtay uga soo qaaday idinkana si ammaano ah oo faseexo ah oo lilaahinimo oo daacadnimo inuu soo gaarsiiyey waxaa la rabaa marka maanta inaan kitaabka sheekha kala wareegno sheekh ijaazo ma bixis soo ijaazo ma laakiin waa ardada way ogoshahay inay kitaab kaa qaadaan waa kaa hadda waa arkaysa rag baa hortaada ku fasiray bishii qur-aankana way soo dhowdahay bishii qur-aankana way soo dhowdahay ramadaan markii la gaaro kutubta kale o dhan waa la joojiyaa siwa alqur'aan qur-aanka iyo macaanidiisa maadaama uu qur-aanka uu soo dego bisha ramadaan ya in qur-aanka laga sheekeeya la rabaa bisha ramadaan oo dadka loo akhriyo oo loo fasiro oo lagu tujiyo oo macaanidiisa loo kala dhigdhigo marka risaaladaas aan ii dhiibaynaa insha allahu tacaala maanta idinkoo mufasiriina cidiina aadaysaan fasax galaysaan nin walbaba meeshaa tagtay tuulo kasta masaajidka ku yaalla iyo mawlaca ku yaalla waa inaad tafsiir ka bilowdo ugu yarahaan adoo juscama soo fasiray waa inaad soo laabataa markaad ugu yar tahay marka kalena waxaa weeyaan waad ka badin kartaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay sheekh jazaahu allahu khayran wabaaraka allahu fiih markaskaas mubaaragaha runtii aan rajaynayno khayr badan in lagu asaasay iyo niyad wanaag oo maalin walba midhihiisa iyo khayrkiisa uu naga farx gelinayana ilahay ha noo barakeeyo macallimiintaas qiimaha badan ee tadxiyada xooggale ku bixiyey xaalad kastoo ku sugan yihiin duruusta inay akhriyaan u soo istaagay ee ku sabrayna cilmigooda kala duwan ay akhrinayaan cilmi naafica allah uga dhigo maamulka howlahaas kala wada ee agaasimaya ee kala duwan ee nooc kasta nin walbaba qayb ayuu maaragtay ka taagan yahay nin walba qayb buu ka taagan yahay hadda maalan wasaa'ishan hadda socialka la yidhaahdo in looga faa'iidaysto qur-aanka iyo sunnada iyo cilmiga iyo dacwada faafinteeda ilaa inteeba iyo ahamiyaddeeda ay leedahay kutub badan baa noo duuban oo dhegaysanaa soo maa haddaynan ahayn rag duubaya u taagan oo hawsha ayada ammaanada ilaalinaya oo dhowraaya oo tanqiixinaya oo tartiibinaya oo nadaaminaya oo markii looga baahda laga helaayo dee waxaanu faa'iidaa lama heleen saas darteed mar walba waxaan u duceynaa macallimiinta waxaan haddana u duceynaynaa ninka la yidhahdo cabdilkhaaliq oo ah ra'iiska ama mudiirka qismu aliclaam waa addacwa waaliclaam ninka asagana loo duceeyo baaraka allahu fii dhah allah barakeeyo maxaa yeele qayb weyn oo muhim asagana noo hayaa soo ma marka allah barakeeyo isagana muraadkiisa allah sahlo jazaakum allahu khayran dhammaanteen waa isku duceynay wax laga tegay ma jirto ducadaasna waa xaqa muslimka walaalkiisa muslimka uu ku leeyahay wey inay isku duceeyaan kuwii hore oo dhintayna waa loo duceeyaa kuwa dambana waa loo duceeyaa kuwa kula joogana waa loo duceeyaa mu'miniinta waa walaha mu'miniinta ka dhexeeya baynahum ay maaragtay isku ka dhexeeya wey markaas dad badan baa runtii gacanta ku haya oo qayb badan ka qaata qayb walbaba qalbigaan ku haynaa waana u duceynaynaa waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum khitaamuhu miskun weeyaan markaska hawshiisa soo socotay inuu tafsiirka qur-aanka noogu khatimo sanadkan ayaan maarata aad ugu faraxsanay waxaan ka codsanaynaa sheekh axmed maadaama oo raggii la kowsaday ee hadda dhammaystay min awalihi ilaa aakhirihi waan garanay kuwa ayaga mas-uuliyaddii xilka way fooshay oo ku wareegtay way ku ceshan karaan muraajacada waa u bannaan tahay laakiin waxaa jira dad gadaal ka yimid ayaa jira waxaa jiri doona insha allah dad gadaal ka imaan doona oo dambe oo sanadka socda imaan doona marka waxaan rabnaa insha allahu tacala ka codsanaynaa tafsiirka qur-aanka inuu naga kala go-in waa mubaarak waa barakaysan yahay waan barakaysanaynaa ilaahay baa ku magacaabay mubaarak ku magacaabay meelo badan qur-aankiisa kariimka ah marka waxaan rabnaa tafsiirka inuu noo socdo insha allahu tacaala dhowrkii beri eed akhrin jirtay 3 beri baad amnaynayaa siniin 3 4 sidii inuu noogu socdo oo aan ka faa'iideysano saasaan aad iyo aad ayaan u codsanaynaa aad baan u mahadsantihiin mar labaad mar saddexaad بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاه الله الخير شيخنا الله بركيه كلمة أسنا الله نو بركيه الله نو أنفعه. وحاجرتا أنت ولي أنا أقولين نتائجتا أو لجنة التحكيم أنا كوري جنين وحارب إن شاء الله وحاجة تكريم هي هدية ومركز وطلق على الشيخة مفسر كها قرآن كترجمة
marka waxaan u yeedhi insha Allah laba arday oo ardayda kamid ah oo sheekha takriimiyaan oo jaaziyaan insha Allah Sheekh Maxamed Ciisa iyo Shacayb Carab labadaas oo istaagaan sheekha takriimka oo loo diyaariyay markaas uu diyaariyay hadba xasiyaan insha Allah ما شاء الله مبارك الله نوض بركيه إن شاء الله تعالى شيخنا شيخ عبد الرحمن يا أرديديسي هيا شيخ تكريميين مركا الله نوض بركيه إن شاء الله هذا وحنكو ورجين إن شاء الله مسابقة دي ترتنكي قرآن كريم كحفظ جيس السعودية أرضية أي كتر تمايين رجي لجنة التحكيم هاي قعنتكو هاي وين هاي شيخ عبد الوهاب قرد ينكو ورجين إن شاء الله ويك أي كاس كله فليتفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحمد لله إلى ما اسكال نعمة الإيمان والإسلام عليه النصر قليل تفسير القرآن كهين ونوضى ماذا ونوأهنا شيخنا شيخ أحمد زياد إله رب سبحانه وتعالى بركاته أجر كيسي حسنات كيسنا إله مارته أو زياديو إله رب سبحانه وتعالى أننا إله نو أنفعه أنا تفسير كاسيدو أدو قيمة بدن وقت بدن نسو سعدي إلهنا رب سبحانه وتعالى نصو قبقبي وأنو مهد علينا شيخ إن شاء الله أرضنا إذن وأنو مهد علينا أيانا مارته كفائدة استي رنتي وأن إذن هم بلينا أرضنا سيقوني مركزك يعني مارته تضحية أو بحيي يدلك أو بحيي يا شيخ عبد الرحمن دكتورك شيخنا إله بركيو دلك مارته أو بحيي سنة وان أقوم هاد علينا غاب كمارته محو هاي منهج كلو دجي يمارته أصعته أضوق فائدة ستين إنك وأركيسان معناها وي شيخ يا مارته هرمود وأبوه أرنتا يدا وحاوي qofkii dadaalo daar culum inta uu joogo oo ka faa'iideysto wuxuu ka bixiyaa asagoo maaratay mufassir ah asagoo muhaddith ah asagoo faqih ah asagoo luqawi ah asagoo muqri ah intaba macnaha way adigoo joogto ayaad ka baxaysaa maaragtay waxa weey darsad ma jiraan ka soconin ma jiro ilaa hadda waxaan maayeen jaamacadii baa noo soo hartay insha Allah jaamacadana waan rajaynaynaa insha Allah inta kale waad helaysaa adigoo joogto baa luqadda carabigana baranaysaa muxuu ahay madrasadii ku jirtay oo baranaysaa culuum shariica baranaysaa quraanka waad xifdinaysaa oo maanta aan ku qatimina macnaha tartan quraan ah marka waxa soo dhan oo nicmada soo dhan baa isdul saaran marka arinta waxaan rabnaa inaad ku baraarugdaan oo ka faa'iideysataan insha Allah Ilaahay raahdo waa nicmo aad u weyn barakallahu fiikum mid kale walaalayaal waxa jirtay مسابقة ترتن مسابقة جري وماركتي رج أي كسو فكرين وسو هندسين وهوشا أي باللابين أيغنا وحالين هاي رجع سيدو أيغنا ماركتي إلى خير هسيو ذلك أي بحيين ونباهن هاي رنتي فكرة ده يا ماركتي اختراع نوع سوكله إن رج ماركتي كأن الله له ووحسو كردي أدمن أو باهن هاي مركا إن شاء الله نيجنا وإن كم هالعلنا أرنتا أيضا ماركتي أصميزين مركا ولقوا أرضنا مسابقة وقت دوبة الهندسي ووقت الفرقلسي وذي معها أيضا صاص هذا وحى إله رب سبحانه وتعالى يعني مارتي حكمة ديسة والوجول استي أرنت إذا هاد مركا ما أنت هذا وأنا أفردنا إن شاء الله دلها هذا أرضنا أنت كنت ترتمهين هي مارتي وحيالها أرضنا لو يدين هاي هي نتيجة إعلان كذا إن شاء الله وحنكون رجين دونا الشيخ إدريس إلى خير هسيو إسامة النوع الله من دونا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد مركز كوباد إلهي وما أزكى سبحانه وتعالى وما أنت نوقدري إنا إيمانه حفلة قيمها بضن
lagu maamuusayo ama lagu weyneynayo kitaabka ilaahi tabaaraka wa tacaala ilaahi baa mahad iska leh marka labaadna culummada ayakan waxaan leeyahay mahadsantihiin khaasatan sheekhi wuxuu ahaayay tafsiirka dhameeyey ilaahi subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo intaa kadib musaabaqada waxay tahay bilbilaaw bay ahayd shay markuu bilbilaaw yahayno xogo way iska yaryar tahay ilaa waxaa lagu tartamayey 4 qayb qaybta koowaad 50 juus baa ku tartamayeen midda kale 20ka midda kale 10ka midda kale 5ta maadaama wuxuu ahaay ay cusuban tahay dadkan aad bay u yaraayeen runtii wuxuu ahaay 17 qof bay ahaayeen ayaka ardadana ayaka asxil qaameen oo wuxuu ahaay soo diyaarsadeen wax macallin oo diyaari ma jiro ayaka soo diyaariyeen oo wuxuu ahaay banaanka iskeeneen quraankana galaas ugu meey jirino way un diyaarsanayeen horaan bay quraanka soo bogin arintan waxay ku tusinayeen in ay dadaalayeen oo kalaamka ilaahi tabaaraka wa tacaala ay halmaamin ayaka ay xil iska saareen marka insha Allah ardada marka hadii la tartamo waa un la kala orod badan sooma quraanka ilaahi subxaanahu wa tacaala qofkii lambar hoos ku keenana qof dhacay ma aha uu baase aayada markii lagu celiyo loo rujuuc la dhaho laga goosanayo ajir labaad baa lagu qori oo wuxuu ahay xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam qofkii hal xaraf akhriyo wuxuu heli 10 ajir kitaabka ilaahi kamid subxaanahu wa tacaala marka insha Allah hoos baan ka soo bilaabeynaa lambarka koobaad iyo lambarka labaad intaas baan yeerinayna insha Allah inta kale mushaarikiin ayagana dib aan ka yeerin doonaa marka waxaad takriiminaysaa lajna oo wuxuu ahaay afwan idaarada oo quraanka musaabaqada diyaarinayeen ya karaameyn doonaan insha Allah tacaala marka waxaan yeerinayaa 5 juus 2 nin baa ku tartameen labadan hadee tartameen mid baa la muran qaaday xaweeyo Cabdiraxmaan Maxamed Sahal insha Allah marka ijaazadiisana sheekh kuureej insha Allah sheekh Hasiyan هو جنة الأرواح والأبدان نور الحياة ومنهج رباني يا فتية القرآن يا خير الورى فلتسمعونا لذة القرآن qaybta waxaa u bixinaa 5 juus ka bacdi 10 juus ku tartamayeen lambarka koowaad Shuayb Mahad yaa soo istaagay lambarka koowaad Shuayb Mahad ومنهج رباني يا فتية القرآن يا خير الورى فلتسمعونا لذة القرآن لمرك اللباد أو 10 جزء عبد الفتاح إسحاق لذة القرآن هو جنة الأرواح والأبدان الله نمبر 1 فرع كلا 20 جزء يا فتية القرآن يا خير جزء وحال نمبر 1 محمد خضر نور 20 جزء فلتسمعونا لذة القرآن هو جنة الأرواح والأبدان كان لبعض إسماعيل قاسم سقو ومنهج رباني وقيبتي لواتن جزء فتية القرآن يا خير الورى فلتسمعونا لذة القرآن فلتسمعونا لذة القرآن هو جنة الأرواح والأبدان قيبت أدميسي صدق جوس صدق جوس قرآن قردن يوم لا نسان يا فتية القرآن أو ينكب العنوية أوجي وحالي رهذا
عبد السلام أبينا وحالي هذا عبد الرحمن أصلا وحالي هذا أما ما يعيش وحاودن بيا تعب أودن بيسا تعب حقدن بيسا زع مين باقي دن بيا حمزة عبد الرحمن عبد السلام فليتفضل ما شاء الله وقاري أصلا قراءات الموسيقى غنايو مركا ما شاء الله تفضل بارك الله فيك جزاك الله خير فلتسمعونا لذة القرآن لمرك اللبان الصيانة أو صدق الجزء كمذا أحمد علي خير والله وين بأطلق بسدين لمرك اللبات أحمد علي خير يو عبد الله محمد إبراهيم لو لا أطلق بسدين عبد الله محمد إبراهيم حرز إبراهيم بأخرتين شيخ مستعد الله يرحمه فلتسمعونا لذة القرآن فلتسمعونا لذة القرآن ما شاء الله شيخ عماد وصارع ما شاء الله بارك الله فيك جزاك الله خير أو نكلمي ما هذه أرضنا أنت أسويو أنت لما رأسه قالين لما ركوبات لما ركلوات كلوا واحد يرينين كبعدي قيبتي أو مشاركين تهاين إن شاء الله مشاركين تهايننا عبد الله بشير يوسف مشاركين تهاين عبد الله بشير يوسف عبد الرشيد فارح عبد الشكور علي عبد الرحمن برخل سوي سعد أصلها وحير مالو كل ريق بوينت واحد قالوا كل ريق كنت أرض أرضا وحوايو تضيتهم بهايانه وهل نموي أنت كلوا ممتاز واي ما شاء الله أدوا في عيني يوسف أحمد عبدو محمد آدم محمد عبد الرحمن مختار عبد الرشيد عمر سليمان يوسف آدم سويستوي إن شاء الله رصد نور الحياة ومنهج رباني يا فتية القرآن يا صورة صدق معايير فلتسمعونا لذة القرآن أنت أصبحنا وقتها نتيجوينك إعلان نتائج ويرها إن شاء الله وحان رجينينا تامك صوصعو إني ضد بدن ترتمان جوائزتنا سن laga sii weyneeyo ilaa lambarka koobaad lambarka labaad kii saddexaad 5 ilaa aan gaarsiin isku dayna insha Allah idaaradan ka codsanayna isku dayaan ay Suleymaan Mima Suleymaan Yusuf Adam Mima ay bas diyaar intaas aan ku soo gogeynayna